aad baad u mahadsantihiin Iglan Saalax iyo Xuseen Shiine. Daawadayaal ku soo dhawaada xubintii ganacsiga warka ee RTN. Qodobka ugu horeeya xubinta ganacsiga ku bilaabayno maanta waxaa kamid ah qiimaha shidaalka ee caalamka ayaa aad kor uga kacay taasoo markii dambe sababtay in suuqa caalamka sidoo kale hoos u dhaco. Suuqa adduunka ayaa inta badan hoos u dhacay iyadoo qiimaha saliidda uu kor u kacay maalintii labaad ee Isniinta kadib markii warbixinta Washington ay doonayso inay xayiraan dhoofinta Iran gabi ahaan. Tilmaamayaasha suuqa Shiinaha iyo Hindiya ayaa hoos u dhacay halka Tokyo iyo Seoul ay wax yar kor u kaceen. Suuqyada London, Frankfurt, Hong Kong iyo Sydney ayaa xirna iyadoo lagu maqan yahay fasaxyada Easter. Dhinaca Wall Street, shirkadda Standard and Poor 500 Index ayaa hoos u dhacay eber 4%, taasoo ah dakhliga ganacsiga Jones oo hoos u dhigtay ilaa eber 2%. Maalgashiyaashu waxay hor u eegeen wax soo saarka guud ee 3 bilood ee soo socda ee Mareykanka maalintii Jimcihii. Sidoo kale toddobaadkan Mareykanka ayaa soo wargeliyay dakhliga uu soo xareeyay maalintii Talaadadii, halka Japan ay ku dhawaaqtay soo saaridda warshadaheeda. Fikradda ballaaran ee looga talagalay waxay muujinaysaa in Mareykanka uu muujiyay in sare loo qaado dakhligiisa, sida ay sheegtay Jeannie Ban oo ka tirsan IG Markets. Dakhliga iyo akhrinta kuwaad ee qadarka Mareykanka ee Q1 dhammaadka toddobaadka ayaa muhiim u ah suuqyada adduunka. Shanghai Index ayaa hoos u dhacay 1.7% iyadoo Tokyo Nikkei ay wax yar ku dartay 17 dhibcood. Suuqyada Taiwan iyo Singapore ayaa iyagana kor u kacay iyadoo suuqa Jakarta uu dib u soo kabasho sameeyay maalintii Talaadadii. Qiimaha saliidda ayaa kor u kacay kadib markii ay wararku sheegayaan in maamulka Trump ay u sheegi doonaan 5 waddan oo ay ka mid yihiin Japan, Koonfurta Korea iyo Turkiga in haddii ay joojin waayaan iibsashada saliidda Iran inay cunaqabataynta Mareykanka laga qaadi doonin. Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in Washington ay doonayso in cadaadis ay saaraan Tehran iyadoo laga jarayo dakhliga dhoofinta. Haddii ay guuleystaan Iran, taasi waxay kor u qaadi kartaa baahida loo qabo sahayada ay ka helaan isbahaysiga Mareykanka ee Sacuudiga Carabiga iyo Imaaraadka Carabta, laakiin waxay sii wadi doontaa xiisadaha siyaasadeed ee u dhexeeya Khaliijka iyo Iran. Dollarka ayaa helay 110.9 oo euro ee Jimcihii oo ahaa 111.9 yen. Euro wuxuu hoos u dhacay 1.2 min 1.245. Dhanka kale ee ganacsiga haddii aan eegno, dowladda Hindiya ayaa mamnuucday gaadiidka xumulka ee ka soo galay dhanka Pakistan. Dowladda Hindiya ayaa mamnuucday shixnadaha ganacsiga iyo gaadiidka ka soo gudba dalkeeda xadka ay la leedahay Pakistan. War ka soo baxay xukuumadda Delhi Khamiistii ayaa lagu sheegay in gaadiidka xumulka oo loo adeegsado gudbinta hubka iyo daroogada aan sharciga ahayn. Amarka ka soo baxay waaxda kontaroolka ganacsiga ayaa dhabarjab ku ah shacabka Kashmir ee labada dal oo kala qaybsan, kuwaas oo ku kalsoon ku qabay in saameyn aysan ku yeelan doonin khilaafka Pakistan iyo Hindiya. Xiriirka labada dal ayaa gaaray meeshii ugu xumeyd kadib markii kooxda Jaysh Mohammed ay fadhigooda tahay Pakistan ay sheegeen in ay weerar ka dhacay Kashmir. Qaraxan ayaa waxaa ku dhintay 40 askari oo ka tirsan militariga Hindiya bishii labaad ee sanadkan. Hindiya waxay ku jirtaa uga horeyn dhaqaalaheeda aad ayuu hoos uga dhacay sanadihii la soo dhaafay, taasoo u eg in sicir bararka India uu maalin walba hoos u sii dhacayo. Sicir bararka India uu aad u sii kordhay. Warkii ganacsiga RTN waa naga inta, waxaan dib idin ku celinayaa Xuseen Shiine iyo Iglan Saalax.